بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف وين بقيت هاي عاوة إن لها الله إذا عدها ريتيفية ده تشيديانا خد بدي سداد جانوري لوكن تضبية طبعا مدن عياري مرويين وحامانت الدولة دوب بحسنتي سنة كي صدحات مدد حيلهاين تقولياش الدولة ده iyadoo shacabka la xasuusin jiray waxqabadkii dawladda bisha Janaayo sanad walba loona soo gudbin jiray qorshaha sanadka soo socda isla markaana dawladdu uga warrami jirtay xaaladaha dalka guud ahaan haddaba dawladdu waxay qabatay shaqooyin badan kuwaas oo taabanaya dhinacyada ammaanka siyaasadda dhismaha iyo soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha dhiirigelinta ganacsiga dhowrista iyo daryeelka deegaanka iyo maareynta khayraadka badda xaaladda nabadgelyada dalka aan ugu hormariyo ciribtirka argagixisada dawladdu waxay ku guuleysatay ka hortagidda iyo fashilinta falalka argagixisada sida qaraxyada iyo dalalka qorshaysan taasoo sanadkii hore la gaarsiiyay in hoos loo dhigo boqolkiiba 91 iyo ka sifaynta ururka al-shabaab deegaamadii ay soo galeen ee Suuj, Garmaal, Garacad, Buraleyda Galgala iyo ururka Daacish oo laga sifeeyay degmada Qandala arrintaas oo ka dhigan in aan marna dawladda Puntland u ogolaan doonin in ururada argagixisada sali ka dhigtaan gudaha Puntland dawladda Puntland waxay ku guuleysatay iyadoo adeegsanaysa awoodeeda ciidan isla markaasna kaashanaysa shacabkeeda inaan argagixisadu iyagoo ishaysta aanay gelin gudaha dalka dibna u noqon iyagoo nabad qaba dawladda Puntland waxay muddo 12 maalmood uga saartay 180 kilomitir iyo 11 tuulo oo hoostaga degmada Qandala oo ay qabsadeen ururka Daacish taasoo tusaale u ah awoodda shacabka iyo ciidanka Puntland waxaa lagu soo qaaday duulaan wajiyo badan leh si loogu waxyeeleeyo nabadgelyadeeda iyo jiritaankeeda dawladda Puntland iyo shacabkeeda oo isku tashanaya ayaa haatan ku guda jira howlgallo lagu difaacayo dalka isla markaana lagu jebinayo cadowga ku soo duulay Puntland gaar ahaan argagixisada noocyadeeda kala duwan Puntland waxay si isku mid ula dagaalamaysaa cid kasta oo ku soo xadgudubta jiritaankeeda nabadgelyadeeda horumarkeeda iyo xuduudaheeda dawladda Puntland waxay mar kale siinaysaa fursad ay ku cafinayso xubnihii ka soo tanaasula fikirka xagjirka ee ururada al-shabaab iyo Daacish si ay ugu soo noqdaan noloshoodii caadiga ahayd waxaan tabaadina gudbo qaybihii kale ee amniga iyo waxqabadkii wasaaradda amniga waxay dawladdu meel wanaagsan gaarsiisay tayeynta ciidamada Puntland waxayna kor u qaaday agabka ciidanka sida gaadiidka isgaarsiinta dhismaha iyo dayactirka saldhigyada booliiska waxaana tusaale u soo qaadan karnaa qalabaynta saldhigga booliiska degmooyinka Qandala, Gaalkacyo, Boosaaso, Qardho, Eyl, Ufayn, Waaciye, Buuhoodle, Baran, Galdogob, Dhahar, Jariiban iyo qalabaynta xarunta wasaaradda amniga ee Garowe iyo Boosaaso sidoo kale waxaa ka mid 4 saldhig oo loo dhameystiray agabkoodii dhismahoodii iyo agabkoodii ay ku howlgali lahaayeen afartaas degmo aslida laga sameeyay waxa weeye saldhiga degmada Xarfo saldhiga degmada Dangorayo saldhiga degmada Isku Shuban iyo saldhiga degmada Godob Jiraan dawladdu waxa ay miirooyinka ka nadiifisay aaga Tuurdibi ee loo asteeyay customka ee degmada Galdogob howlgalkaas oo qaatay muddo 2 bilood wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah xaaladda abaaraha ee Puntland sanadkii 2014 waxa ay abaari ka bilaabatay qaybo ka mid gobolka Bari gobolada Bari Sanaag Karkaar iyo Nugaal kadibna waxay ku baaheen gobolada kale ee dalka oo dhan laga soo bilaabo xilligaas xaaladda abaartu waxa ay ahayd mid marba marka ka dambaysa soo kordhaysa dawladda Puntland
waxay magacawday guddi abaaraha oo gudoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. dowladdu waxay gaarsiisay dadka ay waxyeeleysay abaartu biyo dhaamis gaaraya 3425 booyadood, isla markaana loo qeybiyay raashin kala duwan 3280 qoys. dowladdu waxay u kala dirtay kooxo dhaqaatiir ah oo daaweynaya dadka iyo dunyada isugu soo guuray degmooyinka Bandarbayla, Rako, Isku Shuban, Ceelaayo iyo Laasqoray oo ay ka da'een roobab dhawaan. dowladda iyadoo adeegsanaysa wasaaradaha ku shaqada leh hay'adaha arrimaha bini'aadmiga iyo maareynta waxyeelada musiibooyinka waxa ay joogtaysay ukurgelidda iyo la socodka abaartu heerka ay marayso mar walba. dowladdu waxay abaabushay bulshada reer Puntland ee dibadda iyo gudaha ku nool si ay uga qayb qaataan wax ka qabashada dhibaatada abaarta. waxay dowladdu kulmisay isugu yeertay marar badan qeyladhaan u jeedisay hay'adaha UN-ka iyo NGO-yada ka shaqeeya arrimaha gargaarka aadamiga ee dalka ku sugan. waxaana ka xunnahay inaana ilaa hadda wax jawaab oo waafi ah oo lagu qanci karo aysan naga soo gaarin. dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa shacabka Puntland gudaha iyo dibadba in abaartii ay ka sii darayso maalinta ka dambaysa iyadoo culays dheeraadihii uu nagu soo kordhay dad badan oo Soomaali ah oo ka soo hayaamay meelo kala duwan ee dalka ah. sidaa darteed waa in aan laba jibaarnaa u gurmadka dadka iyo dunyada tabaalaysan. arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha dowladdu waxaa u qabsoomay ururinta xogta miisaaniyadda, isku dubaridka miisaaniyadda, u gudbinta miisaaniyadda golayaasha dowladda iyo u gudbinta miisaaniyadda hay'adaha dowladda ansixinta kadib. sidoo kale dowladdu waxa ay aasaastay xafiiska kaydinta hantida dowladda. dowladdu waxay isbedel ku samaysay miisaaniyadda cusub ee 2017 waxayna ka dhigtay 160 milyan 580,648 dollar sanadkiiba. waxaana loogu dhaqmayaa sidii loo asteeyay mana jiri doonto fadlan iyo lacag aan miisaaniyadda ku jirin oo hay-ad iyo cid kale loo ogolaan doono. waxay dowladdu halgan dheer u gashay midaynta miisaaniyadda dalka iyadoo qorshaha lagu daray ilaha cusub ee dakhliga sida canshuurta shaqaalaha rayidka iyo hay-adaha aan dowliga ahayn. dowladdu waxay diyaarisay xogta miisaaniyadda degmooyinka iyo ururinta xeerarka iyo shuruucda tayeynta shaqada. waxaa meel gabagabo ah maraya dhismaha xarunta dhexe ee wasaaradda maaliyadda ee Garowe. waxaa sidoo kale la dhisay xarunta wasaaradda maaliyadda ee Gaalkacyo, waxaana la qalabeeyay 2 xarumood oo ah Boosaaso. dowladdu waxay dhamaystirtay dhaqangelinta database-ka garoomada iyo furdooyinka. waxaa la hirgeliyay lana dhamaystiray qaabka canshuuraha ee ku dhisan qiimaha badeecada waxa loo yaqaano ad valorem system, tababarida shaqaalaha iyo ciidanka ilaalinta canshuuraha, diyaarinta tariifada iyo kala saaridda badeecooyinka. dowladdu waxay kor u qaadis iyo iskaashi u samaysay guddiga qandaraaska iyo canshuuraha biriga, waxayna u samaysay xogkaydiye canshuur bixiyayaasha qandaraasyada. dowladdu waxay samaysay canshuurta tirakoobka guryaha kiraysan ee Boosaaso, diyaarinta dokumentiga, tababarida shaqaalaha iyo ciidanka habka tirakoob samaynta iyo baadigoobka dhaqaalihii lagu fulin lahaa tirakoobkaas. dowladdu waxay midaysay dakhliga iyo kharashka iyo isku xidhka dhaqdhaqaaqyada kharash iyo dakhli ee dhammaan gobolada dalka si maalinle ah. sidoo kale waxay midaysay dhammaan dukumentiyada lacag qabashada ee isticmaalaan hay'adaha dowladdu. dowladdu waxay ku hawlan tahay sidii loo kobcin lahaa loona ballaarin lahaa ilaha dakhliga, beeqaaminta kharashaadka iyo ku dhaqanka miisaaniyadda dalka iyadoo dadaal badan lagu baxshay natiijo wanaagsanna laga gaaray kobcinta canshuuraha biriga, kicinta madaxyada canshuuraha biriga. sidoo kalena dowladdu waxay gacan ka geysatay qaadashada mashaariicda horumarineed iyo hirgelinta dhismayaasha dowladda, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta gobolada Puntland. waxaa la dhamaystiray adeegyadii garoonka Boosaaso iyo shuruudihii ay u baahnaayeen diyaaradaha caalamiga sida shidaalka, qalabka sugidda amniga, qalabka handlinka, siliga ku wareegsan garoonka iyo kordhinta korontada solarka. waxaa la tababaray shaqaalaha amniga garoonka iyo kuwa farsamada korontada solarka.
waxaa imtixaan laga qaaday arday waxbarasho loogu dirayo Kenya ee soo baranaya hay'adda diyaaradaha saadaasha hawada iyo maamulka adeega hawada oo hadda ECAO ay hawshooda wado. waxaa heshiisyo iyo ruqsado la siiyay diyaaradaha caalamiga kuwaas oo bilaabay duulimaadyo isku xira Puntland iyo caalamka intiisa kale. waxaa meel gabagaba ah maraya dhismaha garoonka caalamiga ah ee Garowe waxaana la dhameeyay 85% dhismaha runway-ga. waxaan rajaynaynaa in waqtigii loo qorsheeyay garoonku ku soo dhamaado. waxaa barbar socota taas diyaarinta adeegyada garoonka, qalabayntii iyo ballaarintii terminalka. waxay dawladdu heshiis la gashay injineero caalami ah si ay u hubiyaan in dhismaha garoonku waafaqsan yahay shuruudaha garoomada caalamiga ah. waxaa la dayactiray runway-ga, taxiway-ga iyo apronka 1500 oo mitir oo ka mid ah garoonka Gaalkacyo, welina waa socotaa dayactirkii. waxaan bilownay qorshaha garoonka cusub oo caalami ah oo Gaalkacyo yeelan doonto iyadoo oo lagu guuleystay sahmintii iyo calaamadintii goobta ku habboon garoonka. waxaa kor loo qaaday amniga terminalka garoonka Gaalkacyo, waxaana la keenay qalabka baarista dadka iyo alaabta, dhisidda qolal wax lagu baaro iyo shaqaale loo tababaray sugidda amniga terminalka iyo diyaaradaha. waxaa dayactir dhammaystiran lagu sameeyay runway-ga garoonka Qardho iyo Konoko iyo wadada garoonka Konoko gasha. waxaa laga dhisay garoonka Konoko terminal cusub oo ay si gaar ah u isticmaalaan hay'adaha caalamiga ee ka howlgala Puntland. waxaa kor loo qaaday amniga guud ee garoomada Garowe iyo Konoko. wasaaradda ganacsiga dawladda Puntland waxay martiqaadiyo u fidisay wafdiyo ganacsato ajaanib ah oo ka kala socday wadamada Ethiopia, Masar, China, Turkiga, Oman iyo India si kor loogu qaado ganacsiga iyo maalgashiga Puntland. dawladda Puntland ay weheliyaan shirkado maalgashi ajaanibihi waxay buraleyda Puntland ka sameeyeen sahminta sibirka dhagaxa iyo rinjiga. dawladdu waxay ku tagtay safaro shaqo oo suuqgeyn iyo maalgashi ganacsiga Puntland wadamada Turkiga, China iyo Imaaraadka kuwaas oo salka ku hayay maalgashi caalami ah iyo iibgeynta badeecadaha dalka. dawladdu waxay samaysay sharciga shatiyada shirkadaha ganacsiga iyadoo sidoo kalena samaysay samaysay siyaasadda horumarinta ganacsiga Puntland. howlaha guud iyo gaadiidka dawladda Puntland waxay daraasad kormeer iyo qiimeyn ku samaysay dhammaan mashaariicda la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha. dawladda Puntland waxay daraasad ku samaysay sidii loo suurtagelin lahaa wadooyinka laga sameeyo dhagaxa ama cobblestone roads. dawladda Puntland waxay horumarisay tayeysayna waaxda dhismaha iyo mashaariicda wasaaradda waxayna dayactir qalabayn ku samaysay xarunta wasaaradda ee gobolka Mudug. dawladda Puntland waxay ku howlan tahay horumarinta jaangooyinta dhulka iyo qaabka loo ballaarinayo magaalooyinka iyo sidoo kale u dirid tababaro dheeraad ah oo xirfadooda kor loogu qaadayo injineerada iyo farsamayaqaanada wasaaradda howlaha guud guriyeynta. waxaa kormeer iyo fulin howleed oo joogto ah lagu wadaa mashaariicda dhismayaasha dawladda sida xarunta wasaaradda maaliyadda, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda haweenka, laanta socdaalka iyo xarunta naafada oo intooda badani marayaan heer gabagaba ah. waxaa la bilaabay mashruuc tijaabo ah oo hadda sahankiisii dhammaaday oo ku saabsan jaangooyinta magaalooyinka oo tijaabo ah pilot project degmooyinka Boosaaso, Garowe, Qardho iyo Gaalkacyo. waxaa kor loo qaaday aqoonta shaqaalaha hay'adda wadooyinka 75%. qaab dhismeedka hay'adda waxaa lagu diray 2 waaxood oo waxaa meel gobogaba maraya dhismaha xarunta cusub ee Gaalkacyo oo hadda maraysa 33%. xaruntaas waxaa wada dhisanaya hay'adda wadooyinka ee wasaaradda kalluumaysiga. dawladdu waxay bilowday dhismaha wadada laamiga ee isku xirta Garowe ee Gaalkacyo. hay'adda GIZ oo wakiil uga ah dawladda Jarmalka iyo Midowga Yurub mashruuca Garowe Gaalkacyo ayaa qaatay injineeradii hagi lahaa dhismaha wadada iyagoo isugu jira ajaanib iyo muwaadiniin. dawladdu waxay dayactir iyo dubdhis ku samaysay buundooyinka miriray ee jidka laamiga ah Qardho ilaa Boosaaso. waxaa la keenay 2 qalab oo miisaamaya xamuulka gaadiidka si loo ilaaliyo xamuulka xadaafka ah ee gaadiidka saaran. dawladdu waxay keentay gaadiidka wadooyinka oo ku shaqayn doonaan injineerada hay'addu.
dowladdu waxay bilowday dhismaha wadada Ceel Daahir ilaa Ceer Gaabo